bartamihii qarnigii 12aad ayuu ku dhashay meel ka mid ah Mongolia. Aabihiis oo hogaamiye qabiileed maadaama Mongolia xilligaas ay qabaa'ilo ku dhisanayd, ayuu dagaal ku soo gafaashay haweeney kadibna guursaday, taasoo dhashay isaga. Markii uu dhashay kadib waxaa loo baxshay Temujin. Aabihiisa waxa uu lahaa xaas kale oo 2 ilmood u dhashay, hooyadiina waxay dhashay isaga iyo 4 kale. Nolol xoolo dhaqata ayuu ku koray, isagoo yar ayaa aabihiisa la sumeeyey kadibna u geeriyooday suntaas. Xilligaa kadib waxa uu bilaabay inuu hooyadii walaaladii ilaaliyo. Ugaarsada miyiga gala ayuu noqday, aadna u xooggan lagana baqo. Xilli ay ugaarsanayeen isaga iyo walaaladii ayuu wiil u dhalay aabihiisa cuna isku qabsadeen, kadibna waa uu dilay. Dilka walaalkiisa kadib waa la qabtay, balse waa uu fakaday. Mar labaad waa la qabtay, balse mar labaad asagana wuu baxsaday. Nolol adag ayuu ku koray. Waxa uu soo aaday dalka Shiinaha, halkaas oo addoon ahaan boqortooyadu u qabsatay. Dhibaatooyinkaas oo dhan isagoo ka hooseeya da'da 20 sano ayay ku dhaceen. Temujin waxa uu ka soo baxsaday addoonnimadii. Waxa uu yimid dhulkiisa Mongolia. Waxa uu bilaabay inuu qabiilkiisa hogaamiye u noqdo, uuna midayo dhammaan qabaa'ilada Mongolia. Waxa uu noqday hogaamiye laga baqo. Waxa uuna la baxay magaca Genghis Khan oo lagu macneeyo af Soomaali ahaan hogaamiyihii badweynta ama hogaamiyihii dunida. Genghis Khan waxa uu sameeyey boqortooyadii Mongolia. Waxa uu ciidan u kala diray jiho kasta oo dunida ah. Waxa uu cagta mariyay dhammaan boqortooyinkii iyo maamuladii ka jiray dhulkaas. Waxa uu fidiyey duulaankiisa, isaga 100,000 oo Mongolian u diray dhan walba. Maamulkii boqortooyadiisu waxay ka jirtay intii u dhaxaysay cirifka bari ee badda Japan ilaa bariga Yurub ee Ukraine, dhanka kale ilaa cirifka Turkiga iyo afka Giriiga, ilaa dhammaan bariga dhexe ilaa Hindiya iyo guud ahaan dhulka Shiinaha iyo Bershiya. Inta la ogyahay taariikhda aadamaha waa boqortooyadii ugu ballaarneed ee dunida soo marta ee ka talisa dhul intaas la eg ee is haysta. Sidoo kale boqortooyadiisu waa tii labaad ee ugu ballaarneed ee taariikhda aadanaha soo marta kadib tii Britishka. Genghis Khan maamulkiisa waxa uu nafta dhaafiyay 12% dadkii xilligaasi ku noolaa dunida. Waxa uuna dilay dad ka badan 40 milyan oo qof. Dadkaasi waxay u badnaayeen Bershiyan iyo Chinese. Taariikhda ma jirto hogaamiye dilay tiro intaas la eg oo dad ah. Waxaa loo arkaa xasuuqii ugu weynaa ee taariikhda aadamaha soo mara. Sidoo kale waxaa loo arkaa guuleystii ugu weynaa ee taariikhda soo mara. Buugaagta taariikhda waxa ugu xusan inuu sameeyey boqortooyo waqti gaaban ku xukuntay dhulkii ugu ballaarnaa xilligaas iyo dadkii ugu badnaa ee haystay ilbaxnimadii ugu sarreysay. Sidoo kale waxay taariikhdu xustaa sida cajiibka ahayd ee ciidamadiisa cagta u mariyeen boqortooyin lahaa ilbaxnimo iyo aqoontii ugu sarreysay. Waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay mid ka mid ah shakhsiyaadkii ugu saameynta badnaa ee dunida soo mara. Maanta Mongolia waxaa loogu yaqaanaa halyey ku xusan qulubtooda. Madaarka caasimadda dalkaas ayaa loogu magac daray. Magaciisa ayaa ku xusan lacagta dalkaas iyo sawirkiisa waxa uu eg. Sidoo kale dad badan oo Mongolish ah ayaa booqda deegaankii uu ku dhashay.